الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول. إن شاء الله ويسيرنا صلاة عصر على الجل روا بعد صلاتنا وأسكت نخرنا سيدنا هذا كل شيء أنا ما أنت وحاجره سفر عن أقول طلع جلني إن أنكو صباحنا ولا الله هنا وأتأكد أنتن ولا الله يدك إيهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. دول مديد فاميلي وعليكم السلام من المال والبوء الدنيا كجوكتان. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والضمدي على محمد نور عثمان إيه إسحاق إبراهيم. السلام عليكم شيخ. ما أنت واصعنا حاجة صارنا. ما أنت فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal sida idin muuqata waxaan maanta hortaagannahay haddii aan nahay dulmidid media group albaabka hore ee laga galo qubuuraha lagu aaso dadka muslimiinta ah ee ku yaal magaalada Edmonton dalka Canada. runtii maanta waxaan jeclaysanay in aan soo booqano walaalaha ku aasan dhulkan maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. waxaad booqataan qubuuraha maxaa yeelay waxay idin xusuusinaysaa aakhirada ama dhimashada. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu noo sheegay markii aan booqanayno qubuuraha in aan salaamno dadka ku duugan halkaas kadibna aan u duceyno. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين نسأل الله لنا ولكم العافية وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والاسم أين بريقه بين الثناء هذه نهاية حالي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة
ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والحب ودع شوقه وبكى رثائي وبكى رثائي والدمع جف مسيره بعد البكاء بعد البكاء بكاء والكون ضاق بوسعه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ولا ليال سلام كدب dhammaan aayadaha qur-aanka kariimka ah oo aan idin aqriyay iyo aayado ka badan runtii intaba waxayna tusinayaan in maalin uun adduunyada aan ka tegi doono. halka aan u soconana ay tahay dadkii naga horreeyaalkii ay mareen oo ah maanta halka aan taagannahay. runtii dad badan ayaa ku aasan oo da-dooda kala duwan tahay. qaar baa dhashay sanadkii aniga aan ku dhashay, qaar baa dhashay sanadkii aniga aan ku dhashay kadib, qaar baa dhashay sanadkii aniga aan ku dhashtay ka hor. intaba waxay ku hoos jiraan dhulka hoostiisa, mana aha mid ayaga keliya u gaar ah ee kulligeena waxaan ku jirnaa laayinka ama safka. qof walibana markiisa ayuu sugayaa. أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي. kanada waa maxaa فرش التراب يضمني وهو إن أنا أقبل عماشة دمان قبورتان أن سو زيارينا waxay noo tahay alxamdulillah xasuusintaas tan noogu weyneed aan soo aragnay oo cajiibka noogu ahayd oo nafteena wax cajiib ah ma aha laakiin waa wax markaa aragtid anaga bini'aadanka sideedaba waxaan aragno aan ku camal qaadana. waxaan indhaheen ku soo aragnay anagoo wax kasta maqli jirnaa mar og dad naga da'yar, dad alxamdulillah nagu da'e iyo dad naga weynbo oo markaas aytay oo meeshii ku aasan waqtigoodiina oo dhammaaday. xaaladda meesha ah markaa aragtid waxa waaye wax soo dhaqaaqaya wax hadlaaya male. waxaa ku jiro takhaatiir, waxaa ku jiro dad culamaa, dad shuyuukh ah, dad markaas da'doodii oo alxamdulilaahi maanta oo ilaahay subxaana watacaala da'dheer siiyey ilaa qaar 90 xijinaya malaa dhimashada xijinaya male. subxaan allah. ninkan waa wadan hebel oo ka soo jeedaa iyo nacam ama ninkan nin oo iska reer fakiir ah waaye nin waaye naag waaye waa yaryahay waa weyn intaasoo dhan ma jirto. nacam marka alxamdulilah rabbilcaalamiin intaas aan aragnay iyo wax lamida markaas oonan markaas nafteeni baraarujin weyn u noqotay. ilaahina waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala kuwii xasuustoodii markasta ay noosha ilaahay inoo nagu daro. waa inaa markaas xasuusano dhimashada, inaa xasuusano xaaladaha noocaas iyo wix lamid ah. ilaahina hana waafaji insha allah. sheekh hal su'aal ku weydiinaa oo ana xanaaqid ya tafadal sheekhi. sooka baad sano ku bilowday sookii sida horta ilaahay nala ogyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin. soonkii yaraanaan ku bilaabay jir camalaya yaraan markaan dhahaayo 13 iyo 2 aniga waxaan xasuus
xasuustaa inaan soomi jirin alaabta caadiga ma soo alaabta caadiga alaabta caadiga ma alaabta caadiga wixii ka horeeyay ma sheegi karin wixii ka horeeyay xataa inaan soomi jirin la sheegaa laakiin taas aniga ma xasuusti laakiin maxaan xasuustaa 12 iyo inaan waxyaabaha kale jiro waxaa ka mid ah ramadaanka camaladi aan ka soo qabano naam saacadaha aan soo inta waa badan yihiin waxaa yar saacadaha aan furanahay 24 saac markii la fiiriyo naam soo anaga dhan waxaan furanahay 6 saac maalintii habeenkii aan 6 saacadood aan cashana ku dukanaa maqrib taraabiix tahajjud ilaa iyo suxuurtii kulli naam laakiin dadka Soomaaliyeed dadka badan ay haystaan oo habeenkii inay anfuraan inay seexdaan ay soo kacayeen taraabiix aadaayeen seexanayeen tahajjud aadaayeen يعني وقتها هذا وفليه نعم marka ma la dhigi karaa dadkaas waa naga fursad fiican yihiin oo xag cibaadada yani haya perfect ku ah wallahi su'aalooyinkan wax way soo naqdaan صح markaan si loo fiiriyana aniga ka ajir badana isleenahay ama ka jaanis fiican maxaa yeelay anaga waxaan dhex joognaa ummad oonba afka isku qabanayno maanta afkooda raashinka dhaqaaqo iyo xaalad walba lagu sugan yahay taas ayadoo tahay aan isku dayoonaa inaan afkeeni xirno aan soonkii aan alxamdulilah iyo sidii adigoo hortaada raashin lagu cunayo waa ku yaab badnaa maxaa waaye ugu aragtay wadankan waxyaabaha ugu badnaa dhanka cibaadada ma yaamay waa inta noloshaada oo yani meeshaan joogtid waxaa istiri waxaan ku dhinayaan maxay عجيب وسؤالها نوع سوى اسكا ادقيهن wax badan aan ku soo mari karo laakiin waxay soo maritaan tan waxa igu dhanka cibaadada soonkan ku jirnay ramadaanka igu cajiib badnaa markiin ramadaan qaarkiis aan 9 saacadood aan soomnay aan arkay waxa igu weyn taas 9 saacadood oo la sooman yahay afka oo aadan fureynin صافي رمضان مبارك كوني ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شعر الغزير فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran descends in this holy month أرحب بك يا شهر رحمة أرحب بك يا شهر رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار رمضان مبارك لكل مسلم شهر الغزير فيها ينزل القرآن Happy Ramadan all Muslims of the Quran descends in this holy man. Welcome you, O holy man of Ramadan. I welcome you, O holy man of blessings. And you are seek nearness to my creator. For you my soul and heart has been purified. Ramadan, the month of forgiveness. Ramadan, the month of blessing.